daawadayaal halka aad sida tooska aad noga daawanaysaan waa warbaahinta caalamiga almutaxaabuna fillaah oo aalabad ugu barataan inay idin soo gudbiso waxyaabaha qeyriga ah galabta halkan waxaa lagu soo gabagabeeyay qatinka siyaaradii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdullaahi Casir oo kamid ahaa mashaayikhda ugu waaweyn gudaha dalka Soomaaliya galabta waxaa ka soo qayb galay qatinka siyaaradiisa qaybaha kala duwan ee duruq suufiya sida dariiqada qaadiriya kaarahan uweysiya sidoo kale dariiqada ahmadiya kaarahan rahmaaniya wa ayanu yaqumu bila bibari jawq zirul qadiriya bibari jawq zir ومن وبانا دين الله حقا ومنه أبا مدين باز القادرية شقو ومؤيدين شيخ لقا وبغداد له ذكر عظيم وبغداد له ذكرنا أجربها مقام القادرية وأجا ومن وأتى الفضائل من إلهي ومنه أتى الفضائل من banaabaxa inta uu socday waxaynu la hadalnay qaar kamid ah mashaayiqdii ka soo qayb gashay qatinka siyaarada iyagoo naga sheekeeyay taariikhdii iyo wanaagii Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdullaahi Casir maanta waxaan halkan isugu nimid ziyaaradii weyneed waligii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee caalimka ahaa sheekhayni weynaa Sayyid Sheekh Cabdullaahi Casir ziyaaradiisii baan halkan isugu nimid ayadoo maanta ay tahay maalin talaada ziyaaraduna ay ka soo qayb galeen mashaayikh aad u fara badan iyo dariiqooyin kala duwan ayadoo halkan maanta ay ka soo qayb galeen waxa kamid ah dariiqooyinka ka soo qayb galay ziyaarada xilqada aad hadda arkaysaan oo rahmaaniyada ah ayadoo noocyadeeda kala duwan waxa kale oo ka soo qayb galay ziyaarada xilqada weysiyada ah alxamdulilaahi rabbil caalamiin إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلهي أدونكي سمركو تعلاضه الضوامدي لحدو ديبا محبئيو قلقعيل بالو قلينيا انتان خلائق أو هل كان اسوغو تميدي قفل لو يريكو مجره قفريبو محبدي إلهي يا محبد رسولك يا محبد ساداتك يا هل كان اسوغو كانتي شيخان ولغا لزيارنا هيو ومزورك إلهي باكر رادي النقضي سبحانه وتعالى sidaa darteed bay maanta ay khalaa'iqdan isugu yimideen waxaanu leenahay
أجر يا حسنات الله كسيو أنت كسو قيب كشي زيارتي أو شيخنا أو حاسكو معنا شيخنا الشيخ عبد الله عصر أو ولي إلهي أو هذا قف دينك وسوق دمي أو كسو دلالي قف نحريس بدن أو ومد وقرقاري جراي هاي قف أغلاق ديس أو كحرنيد أغلاق ده حبيب كان صلى الله عليه وسلم هاي marka aad iyo aad jamiicooyinku mahadsan yihiin oo ka soo qayb gashay ziyaarada qaasaan jamiicooyinka oo qaadiriyada oo weysiyada iyo jamiicooyinka axmediyada oo maanta nagula soo qayb galeen marka kulli waa mahadnaqaynaa intii wardi la akhriyay iyo intii quraan la akhriyay Allah aqbalo intii sadaqa la dhiibtana Allah aqbalo awalan waxa faatixada u mareynaa sheeqadeena maana xamsata sheekh maxamed sheekh abdullah casir oo waxa joogta Mareykan oo anaga nagu tarbiyeysay dariiqada iyo wanaaga diinka iyo samafalka marka idana muraadkeeda Allah sahlo intii dariiqadan u istaagsan oo ummadda u gargaaraysana qar Allah siiyo marka waa kaasa ziyaaradani tijaarada kale Allah nagu gaarsiiyo anaga istiqaamo leh oo taqwada Ilaahay laazimino Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan joognaa ziyaartii sheekhayna Sheekh Abdullah Casir radiyallahu anhu ardaahu oo laga joogo todobadii bishii luuliyo 1975 geeriyooday marka waxa waaye intaas waa la xusaayay digriyaadkiisa iyo wanaagiisa ayaa dadku ay iska dhaxlaayeen waxaan anigu ahay dadka xirtiisa kii u yarahay marka berigana anaaba duqa u jeedin muga khayr Allah siiyo diinta u nooleeyay asoo yar ayuu bilaabay 17 ayuu ku xareystay ilaa uu umrigiisa inta ka dambe aakhir umrigiisana maruu kitaab akhrisaayo iyo maruu kitaab akhriyaayo iyo maruu Ilaahay xusaayo ayuu ahay wanaagyaalkiisa wax la soo koobi kara ma aha wuxuu ahay mid tawaaduc badan u ahay maalin maalmaha kamid ah soo iwaanayo wacdiyahay in dhiirigeliyayo kitaab oo ii soo qabtay wuxuu u dhahay kitaabkan gabaraan ka soo caariyeystay oo marka macnaa wuxuu ka waday gabadh cilmi barato diinta ku dadaasho kitaaba badan qabto in laga caariyeysto kitaab fala ba'sa marka wuxuu jeclaa cilmiga wuxuu jeclaa quraanka wixii oo qofka quraanka yaqaano aad u darajeeyahay dadkana waaba ka jeclayba waxa waaye wuxuu dhahay ninka quraanka yaqaano wardi kale uma baahno quraanka wardi ah marka waxa Ilaahay mahadiisa ah ziyaartan waa ziyaaro weyn oo loo ogaayo sheekhaas al-fadliga dhowr meelood lagu xusaa هاي سيدات منك وحصني هذا هو الحصو هيا مال الله مهل وحصو لبعتن ميلاد الوحصو استايلا مركب بركديسة بابك الله كفره بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت الحمد لله رب العالمين وحنا رسالك السلام يا أمد الصوماليات وجوكتو ذلك يدبدا لما إلهي وحنا أكبر يا إن المدوان وعد أي نقدان ذلك هذا إنه نأخذ ذلك أدوك وأمنعه إن شاء الله تعالى وحي جرنا إلهي أنو عافيه ما أنت وحن تاجنا زيادة شيخ عبد الله عصير أيان تاجنا هاي أولا وحن سلامة يا الماما معنا حمستها عن سلامة يا إن شاء الله تعالى وحكلا زيارة نور دقي ولا الكينة شيخ عماد الدين الله قرب قال إلهي شرف إلهي عزايا مارك إن شاء الله تعالى زيارة قبول الله نقول دقي زيارة قبول على صلاة كان سنة كسي ونكسن الله نوجه قرسيو صومالي أردن حنبليو زيارة كل جن والسلام بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. زيارة أو سوس عدة إن كبدن صدّن معلومات أي ساكي هل كان لجوسه جوجبي إيادنا ساكي هل كان لجأ أقري توصل إيه النبي أمان. ومحياك بدر المنير فلا شك أنه القتام وكان جالسا في المحافل أنعامي وكان جالسا في المحافل والناس خلفه بازدحام لما رأيته
أنامي لما رأيت به يقينا فسعت صيحة باهتمام. أنت مجدول لما سمع رحماني أنت مجدول لما سمع رحماني محمد البكاء ابن عثمان. أنت نشرو وناشر أدياني مثلك إن نائب إلهي رحم على الحبر الخليفة شيخ عبد الله. خليفة شيخ عبد الله. إلهي رحم على الحبر الخليفة شيخ عبد الله. أتى من أهل خير سادة علماء جنود الله. ملك الآن دواما يا ولي الله. يا محمد هذه شيخ عبد القادر يا الله. صعب نجي جدي ذا أبو شاعر صفي الله. يا محمد هذه شيخ عبد القادر يا الله. فذاك هو شيخ ثاقلين وشمس شرع الله. alle ha u naxariistay sheekh cabdulaahi casir wuxuu ahaa caalim cumrigiisa ku bixiyay fidinta iyo u qadmeynta diinta islaamka waxaana ka aflaxay kumanaan xir ah oo ku kala deesan guud ahaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa wuxuuna ahaa caalim u gargaara agoonta iyo dadka danta yar waxaana sanad kasta xilligan oo kale loo qabtaa siyaaradiisa halkan saadaam cabdulla siyaad warbaahinta caalamiga almutaxaabuna fillaah magaalada muqdisho.